wiilkii laga waalay ee loo xiray taajkii hantida ee kubaddu cagta Neymar Jr iyo kooxdiisa Paris Saint-Germain waxaa soo martay habeen lagu cadaabay lamagalaygii galgalo ee Amber Road tijaabadii ugu horeysay oo marayna macallim Thomas Tuchel ee tartanka Champions League waxayba ku bilaabatayba ciil iyo madax xanuun waxaan kugu idhiye haaban ilmada ceshobaan ku idhi abtana culay baan ku idhi cawana tashobaan ku idhi oo maxaa yeelay kooxda Liverpool ayaaba isaga daangaysatayba garoonkeedii Amber Road waliba goolkii koobaad ee kooxda Liverpool waxa lahaa goolalihii la waayay maalmahan macallimkii Danziga Daniel Sturridge لدانيال ستاريدج وروبرتسون مرة أخرى جول دانيال ستاريدج ليفربول المهول الليفر مشاهدينا الكرام في حالة جنون بثلاثي الذهب صلاح ماني وستاريدج وأفر دقيقة كما سو wareeganin in Paris Saint-Germain loo biiso goolkii labaad penalty la helayna waxa lagu sharfay James Milner waxaana uu xaqiijiyay si degan oo la jeclaysto ميلنر جول الهدف الثاني وباريس سان جيرمان يعاني ليفربول بكل الأماني زمان يبدو زمان ليفربول انجليزيا واوروبيا لكن kooxda Paris Saint-Germain oo naf iska raadinaysa waxa gool u soo celiyay Thomas Meunier يوسع وتسويق جول بلجيكية السلام توماس مونييه qaybtii koobaadna waxa lagu kala tagay laba gool iyo gool iyadoo guusha horseed ay ku tahay kooxda Liverpool heer Liverpool waxay siiyeen in ay guuleysteen laakiin waxaaba dhacdayba daqiiqadii 83aad in dib uu soo celiyo kooxda Paris Saint-Germain orodheere Kylian Mbappé وهذه كرة جول كيليان الفنان كيليان مبابي كيليان الغزال في فرنسا farxadii kooxda Liverpool waxay isku bedeshay ciil iyo calooliyow ilaa ugu dambeyntii toos oo u soo afjaray kooxda Paris Saint-Germain Roberto Firmino يراوح فيرمينو التسويق جول شنو هذا شنو هذا يا فيرمينو ما هذا يا فيرمينو زلزال بركان انفجار في مدرجات أنفيلد قلت لكم مشاهدينا الكرام هنالك نهاية دراماتيكية saddex gool iyo labana waxay guusha ku raacday kooxda Liverpool jacaylo calhelay kajar kabago caloosho nolosha cusub soo dhawee nolosha cusub soo dhawee nolosha cusub soo dhawee nolosha cusub soo dhawee